Asalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybtii toddobaad qaybtii lixaad waxaan ka hadalnay dot variable iyo data type leedahay marka qaybtan waxaan ka hadlaynaa flow control sida maaragtay if else statement switches waxaan also kasii hadlaynaa maaragtay loops sida maaragtay while loops iyo for loops iyo do while sidoo kale waxaan kasii hadlaynaa list iyo sidaad list u isticmaali lahayd marka insha allah aan bilowno. So marka waxaan furay new dotpad aan furay marka waxaan ku bilaabaynaa maaragtay if else statementiga marka marka conditionka ama syntaxiga if else waxa weeye if conditionkan hadduu true yahay waxaad sameysaa something hadduusan true ahayna wax kala samee marka conditionkan waa hadduu sax noqdo ama true noqdo wax waa sameynaysaa haddii kale wax kale ayaa sameynaysaa marka example haddaan dhahno if conditionka waxa weeye number is greater than 0 right waxaad sameysaa print string quotation marka waxaad dhahaysaa dollar number is greater than 0 right comma marka haddii aad maaragtay isticmaalaysid maaragtay string gudihiisa haddaad isticmaalaysid aad rabtay inaad maaragtay variablekan maaragtay aad access dhahdid ama aad rabtid inaad isticmaashid waa inaad qortaa dollar kabacdi variableka nameka aad rabtid inaad isticmaashid for example waxaa rabnaa variablekan marka waa inaad dollar dhahdaa saad maaragtay u isticmaashid variablekan string gudihiisa saas ayaa sameynayna marka waxaa sameynaynaa variablekan ayaan waxaa rabnaa inaan soo saarno oo inta soo gelino print consoleka inaan soo gelino marka waxaa dhahaynaa variableka 10 for example is greater than 0 hadduu conditionkan sax yahay else hadduu conditionkan khalad noqdo waxaa qortaa I'll just copy here marka waxaa dhahaysaa number is less than 0 kabacdi run haddaa dhahno wuxuu soo saarayaa 10 is greater than 0 waayo 10 waa 10 wuu ka badan yahay wuu ka badan yahay 0 marka 10 is greater than 0 kan conditionkan wuxuu noqonayaa true ayuu noqonayaa kabacdi wuxuu print dhahayaa saan also waxaad lahaan kartaa more if else statement for example waxaad dhihi kartaa else if hadduu conditionkan noqon waayo if number equal 90 marka waxaad dhahaysaa print number is equal 90 okay so marka conditionkan hadduu shaqeyn waayo conditionkan hadduu khalad noqdo kan ayuu maaragtay evaluate ku sameynaya ama uu qiimeynayaa marka hadduu conditionkan sax noqdo kan ayuu soo print dhahaya haddii wax kasta khalad haddaysan labadan aysan khalad noqdo ama false yihiin kabacdi last statement ayuu soo print dhahaya which is else statement haddii hadda print dhahno applicationkeena still wuxuu soo saarayaa maaragtay 10 is greater than 0 waayo wuxuu qiimeynayaa conditionka koowaad marka waxaa dhahnay 10 is greater than 0 kuwan dhan ma fiirinaya kan ayuu soo gelinaya marka haddii aan dhahno number is 90 number haddaan 90 ka dhigno aan kanna ka dhigno 10 hadda marka haddii aan run dhahno hodhowti wuxuu soo saaraya 90 is equal to 90 waayo conditionka koowaad numberka 10 ma aha markaas kan ma sameynaya wuu ka boodayaa kan ayuu sameynaya kan ayuu maaragtay qiimeynayaa marka wuxuu dhahay okay numberka 90 is equal to 90 true waayo sax weeye kabacdi numberkan ayuu soo saaraya haddii oo wax kale ku qorno for example 200 haddaan ku qorno ama 2000 let's say 200 haddii oo saan sameyno hodhowti wuxuu sameynayaa 200 is less than marka waxaa dhahaynaa just 200 bes aa soo qorayna waayo hadda less than iyo greater waxa ma sameyno marka conditionka koowaad muu soo shaqeyn ka labaad khalad weeye marka ugu dambeey elsiga kaas ayuu soo saaraya marka waxaan filanayaa inaad fahantay if else waxaa jira maaragtay switch case wax la dhaho maaragtay oo maaragtay hadda waxaa dhahna if else waa wadnaa maanta oo dhan
marka haddii uu programkaada ku jiro maarata if saan samee else sidaan kala samee else another haddii uu nested if else haddaad ku warwadi maanta o dhan waxaa fiican inaad isticmaashid switch case marka switch case syntaxi waxa weeye conditionka numberka ayaad gelinaysaa meesha aad rabtid inaad qiimeysid numberka waxa weeye number right markaas numberkuu qaadanaya marka switch case wuxuu leeyahay cases badan for example case 10 hadduu numberka 10 yahay waxaa dhehaysaa copy ayaan soo qorayaa kan waxaa dhehaysaa number is for example hadda waxaa dhehaynaa number is kabacdi waxaan dollar sign variableka ayaan soo gelinaynaa haddii aad rabtid new line inuu markasta soo geliyo waxaa qori kartaa kan waxa weye new line ayuu sameynayaa markasta aad maaragtay rabtid inuu new line ama end of line markuu dhameeyo new line ayuu soo gelinayaa okay kabacdi waxaa qoraysaa break haddii aad rabtid inuu maaragtay programka dhinacan ku istaago marka break macnaheeda waxaa exit marka programka uu ka baxaya meeshan ayuu ku istaagayaa hodhowtii haddii aad rabtid another case haddaad rabtid case for example 200 kabacdi waxaa dhahaysaa print number is dollar number new line ayaa markaas soo gelinaya kabacdi break ayaa dhahaysaa kabacdi haddii aad rabtid maaragtay default case ayuu leeyahay default casekan waxa weeye numberkan haddii waxaan noqon waayaan oo numberkana 10 maaha numberkan 200 maaha horoti print ayuu soo dhahayaa oo maaragtay oo wuxuu numberka yahay camal numberkaas ayuu soo saaraya marka waxaa dhigi karnaa default case number is horoti numberkii soo saaray marka for example haddii aan run dhahno waayo numberkeena hadda waxa waa 200 marka kan comment ayaan iska gelinaynaa kan numberka wuxuu soo gelinayaa 200 haddii numberka yahay 10 wuxuu soo gelinayaa numberka waxa weeye 10 ayuu soo gelinayaa hadduu numberka 200 ma aha 10 ma aha haddii aad ka dhigno 20 hodhoti default casekan ayuu imaanayaa oo intan ayuu soo gelinaya default case number is 20 haddii aad rabtid maaragtay cases badan inaad isku waxaysid kabacdi waxaa dhahaysaa hadduu numberka 10 yahay ama case 20 hadduu numberka 20 yahay ama maaragtay hadduu maaragtay numberka uu yahay maaragtay case 200 hadduu numberka yahay intaas saddexdaa meelood hadduu yahay numberka 300 ka dhigtan waayo laba case isku mid ma isticmaali kartid marka hadduu numberka yahay 200 20 10 waxaa dhahaysaa numberka ayaa soo gelinaysa wuxuu yahay for example hadda numberkeena 20 weeye kabacdi waxaa soo baxaya numberka is 20 haddaad ka dhigno 200 kabacdi first one ayuu soo gelinayaa waayo saddex case ayaan meesha ku gelinay marka break ayaan dhahnay exit ayaan dhahnay marka haddii aad rabtid if else inaad isticmaashid oo maanta hore if else haddaad ku weydi waxaa fiican inaad isticmaashid switch cases switch casesna wuxuu badanaa ku fiican yahay haddii aad isticmaalaysa maaragtay enumeration wax la dhaho enumeration waxa weye maaragtay haddii aad dhahno operation for example operation right marka enumeration waxa weeye maaragtay predefined constant values waa waxa adi maaragtay numbero oo maaragtay constant variable adi maaragtay aad maaragtay samaysay weeye for example waa ogtahay numberkan operationkan wuxuu lahaan karaa plus ayuu lahaan karaa minus ayuu lahaan karaa modulo ayuu lahaan karaa right divide ayuu lahaan karaa marka maaragtay numberadan waa maaragtay kuwa aad maaragtay adi ogtahay kuwan mooyaane kuwa ka badan inaan isticmaalayn marka enumeration waa isticmaali kartaa oo programkaada hodhowti wuxuu ka dhigayaa maaragtay akhriska programka ama qof kale hadduu rabo inuu programkaada akhriyo hodhowti wax kasta akhriska ahaanta qof kale hadduu akhrinayo readability aad iyo aad ayuu maaragtay ka caawinayaa waayo haddana valuegan waa maaragtay constant weeye oo hodhowti uma baahnid inaa maaragtay constant variable iyo waxa inaa qortid marka another example aad u isticmaali kartay enum is for example status
haddii aad rabti maaragtay xaaladdu maaragtay programka marayo for example waxaad dhahaysaa status running hadduu programka running dhahoyo hadduu maaragtay programka stop dhahay hadduu maaragtay idle uu marayo programka marka statuskaasna waa ogaan kartaa haddii marka 3 state ayaa haysataa marka programka hadduu running dhahayo waa ogaan kartaa statuska meeshuu marayo waayo saddexdan variableka aadaa maaragtay adaa og inuu yahay maaragtay saddex stateka waa saddex bes cad running stop ama idle marka enumeration waa isticmaali kartaa haddaa og tahay maaragtay kuwan predefineka haddaa og tahay soo isticmaalisid oo maaragtay inaa maaragtay saddex state inuu leeyahay oo maaragtay hodhowti markaa isticmaalisid waa isticmaali kartaa hata for example haddaan I hope you waa u malaynaya inaa fahantay haddii aan dhahno for example constant operation actually uma baahnin inaa marka waxaa dhahnaa op is operation dot plus haddii aan dhahno mar hodhowti waxaan isticmaali karnaa switch casekan waxaa dhahnaa op ayaan dhahnaa kabacdi waxaa dhahnaa case operation dot plus haddii uu yahay caseka hadduu plus yahay kuwan waa iska tirtiraynaa kuwan marka hadduu caseka plus yahay waxaa dhahnaa number is number waa ka tirtiraynaa kan waxaa dhahnaa number plus 10 waayo operationka hadduu yahay plus waa isku tiraynaa number okay it's giving me error it's in undefined number because dollar sign ayaan geliyay marka hadduu caseka yahay haddii kale waxaa dhahnaa hadduu haddana caseka yahay operation dot divide hadduu operationka divide yahay kabacdi waxaa dhahnaa number divided by 10 right haddii kalena default casekana waa lahaan kartaa haddii aan run dhahno programka numberkeena 200 weeye marka 210 ayuu soo saaraya haddaan bedelno divide ka dhigno divide hadduu noqdo programka 200 ayaan divide waxaa dhahnaa 10 marka waxaa helaynaa 20 marka switch cases iyo enumeration waa isku isticmaali kartaa programkaadana hodhowti okay marka wax qaladi waxaas ma samaynayso waayo for example aad ku tusinaysaa u isticmaashid operation enumerationka for example haddaa dhahda string day is Monday right haddii oo maaragtay marka haddii aad dhahday qalad ayaa samayn kartaa waayo markaa qoraysay string waxaas haddii aad dhahday day equal waayo programka hadduu program weyn yahay hodhowtii waa kala saa u isticmaalaysa waa ilaawi kartaa marka haddii aad dhahno print day programkan ma shaqaynayo waayo let me show you inuusan shaqaynayna ku tusina waayo mondayda wuxuu ka bilowdaa xaraf yidhis oo m ah laakiin anaga waxaa dhahnaa big m ayaa dhahnaa marka waayo labadan way kala duwan yihiin inkastoo isku mid yihiin monday iyo monday isku mid weeye waxaa kala duwan bes waxa weeye maaragtay xarafka koowaad ayuu wuxuu yahay big m hataa small m hadaa ka dhigno kabacdi wuxuu soo saarayaa print monday marka saan waa khalad ayaa ku samayn kartaa waa ilaawi kartaa hadduu xarafka capital ama small letter hadduu yahay marka in that case waxaad isticmaali kartaa enumerationka hal mar markaa qortid isma bedelayo marka I hope maaragta waxaa rajeynaya inaad fahantay enumerationka saan u isticmaalayn marka also waxaa jira waxa la dhaho maaragtay waxaa haysataa condition marka expression ayaa leedahay expressionka hadduu saxsan yahay hadduu expressionka saxsan yahay waa true haddii kalena waa khalad saas weeye marka syntax waa saan marka for example haddii aan dhahno number greater than 0 hadduu true yahay waxaa dhahnaa print true haddii kalena waxaa dhahnaa print false marka numberkan hadduu numberka ka badan yahay 0 waxaa dhahnaa true soo saar haddii kalena khalad soo saar
marka lami comment ayaan dhahaynaa kuwan kabacdi run haddaa dhahno programka wuxuu soo saarayaa true waayo 200 way ka badan tahay 0 laakiin haddaa ka dhigno maaragtay negative 200 haddaa ka dhigno waayo negative 200 0 kama badna marka false ayuu soo saarayaa waayo negative 200 is not greater than 0 marka ternary expression kan waa isticmaali kartaa and Flutter application haddaa sameynaysid is really useful ternary expression kan aad iyo aad ayaa isticmaali kartaa also waxaan si waxaanana loops ayaan gelaynaa marka waxaa jira maaragtay 3 different loops ayaa jira first loop waxa weeye while loop weeye marka while loop wuxuu leeyahay condition ayuu leeyahay marka kuwan delete ayaan iska dhahayaa let me delete all of this marka haddii aad maaragtay sorry let me do some cleanup marka haddii oo maaragtay numberkan waxaa ka dhiganaa we'll make this 10 marka 3 different loop ayaa jiro loopyad 3 loop oo kala duwan marka loopka koowaad waxa weeye while loop marka wuxuu syntax haddii aasino int I equal to 1 kabacdi waxaa dhahaynaa while I is less than or equal to what am I doing I is less than or equal to number hadduu numberka ka yar yahay hadduu I ka yar yahay numberkan which is 10 kabacdi waxaa dhahaysaa print I so print dah kabacdi I plus plus haddii aan run dhahno programka waa inuu maaragtay na siiyaa from 1 to 10 marka 1 2 3 4 5 marka while loopka waxa weeye evaluate ayuu sameynayaa marka hore conditionka maaragtay evaluate condition right marka wuxuu sameynayaa conditionka ayuu qiimeynayaa markuu conditionka qiimeeyo hadduu markuu qiimeeyo conditionka hadduu true yahay conditionka markaas ayuu maaragtay execute program markaas ayuu programka run dhahaya hadduu conditionka uu maaragtay uu saxsan yahay haddii aad conditionka hadda ka dhigno 0 haddaa ka dhigno I-na 1 yahay I wuu ka badan yahay 0 marka conditionkan ma shaqaynayo waxna ma soo print karaynayo 0 ayuu soo print karaynaya marka while loopka waxa weeye maaragtay infinite loop weeye wuxuu soconayaa ilaa intuu maaragtay I uu ka yar yahay 10 markuu I ka badnaado 10 wuu istaagayaa marka kaas waxaa la dhahaa while loop ayaa la dhahaa dart wuxuu leeyahay also maaragtay do while wax la dhaho marka do while syntax waa saas do ayaa dhahaysaa kabacdi waxaa dhahaysaa print I right and then you say I plus plus while kabacdi at the end waxaa dhahaysaa while I less than or equal to number kabacdi semicolon right marka haddii aa maaragtay comment dhahno kan kabacdi run haddaa dhahno programka run haddaa dhahno programka wuxuu soo saarayaa 1 to 10 sida while loop laakiin differencega waxa weeye do while wuxuu sameynayaa execute once marka marka koowaad ayuu maaragtay soconayaa kabacdi then it evaluates condition markaasuu conditionka maaragtay uu maaragtay qiimeynaya for example haddii aan 0 ka dhigno haddaa xasuusatay haddaa inta markaa 0 ka dhignay kamuusan shaqeyn laakiin haddii aan 0 ka dhigno conditionka print ayuu soo saarayaa 1 I is 1 kabacdi uu istaagayaa waayo I marka I noqoto numberka waxa weeye 0 marka I-na uu ka badan yahay number laakiin haddii aan maaragtay while loop haddaa sameyno wax ma soo print karaynaya waayo while loop wuxuu sameynayaa conditionka ayay maaragtay qiimeynaysaa marka hore kabacdi markaasuu programka execute dhahaya marka differencega saas ayay u kala duwan yihiin while loopka iyo do while
do while wuxuu sameynayaa programka ayuu marka hore run dhahayaa kabacdi markaas ayuu qiimeynayaa conditionka hadduu saxsan yahay kabacdi uu sii wadayaa hadduusan conditionka uu qalad yahayna exit ay programka stop ama uu istaajinaya programka marka last one waxa weeye loops for loops marka for loopsna waa maaragtay kan waxa weeye definite loops weeye maaragtay definite loop maaragtay oo waa og tahay maaragtay you know the sizeka maaragtay is fixed waayo sizeka waa og tahay for example haddii aan dhahno for int I dollar I equals 0 dollar I is less than number dollar dollar I plus plus haddii aan saan dhahno marka for loopkan wuxuu shaqeynayaa ilaa intuu numberka ka yaryahay numberkana waxaa ka dhiganaa 10 haddii aan dhahno print I dollar I waxaad sababta dollar u isticmaalayo inta waxaan haysanaa I marka kanna waa new variable I weye marka way kala duwan yihiin dollarka iyo I-ga way kala duwan yihiin marka kan commentiyaa sameynaynaa kabacdi run markaa dhahno wuxuu soo saarayaa 0 to 9 marka haddii aan rabno 1 to 10 haddii aan rabno inaan soo sameyno waxaa dhahnaa 1 and less than equal to 1 kabacdi wuxuu ka bilaabayaa 2 kabacdi wuxuu ku dhamaystirayaa 10 marka 1 to 10 ayaan isticmaalaynaa waayo for loopka waan ognahay inta number ayuu maaragtay soconayo waayo waxaad dhahnay 10 jeer soco hadduu maaragtay 0 yahayna ma shaqeynayo number for loopkan wax ma shaqeynayo waayo 0 times ayuu run dhahaya marka saas weeye dhinaca kaleya marka hadda waxaa bilaabeynaa listiga ayaan bilaabeynaa insha allah so waxaan ka hadlaynaa hadda list marka list waxa weeye maaragtay collection weeye meel aad maaragtay aad ku hayn kartid maaragtay group of objects maaragtay objectyaal badan meel aad ku hayn kartid saad hodhowtii maaragtay u dumartid ama loop iyo waxa u isticmaalsid saad maaragtay value aad print usoo dhihi lahayd marka for example haddii aan dhahno final foodkan marka waxa weeye list waa array weeye marka daarada ama elementiga koowaad waxaa dhigi karnaa for example rice pasto kabacdi waxaa dhahaynaa chicken right haddii aan marka print dhahno food wuxuu soo saarayaa if we print wuxuu soo saarayaa rice pasto chicken right marka elementiga koowaad index haddii aad xasuusatay array waxaa dhahan wuxuu ka bilowdaa 0 marka index 0 waa rice index 1 waa pasto index 3 waa chicken marka haddii aad ku dhufatid kan by default waxaan isticmaalaynaa for ama maaragtay dynamic variable laakiin initialize ayaan ku dhahnay list marka haddaad ku dhufatid uu kuu sheega waxa weeye list of string marka haddii aad kan waxa waa implicit declaration waaye uma baahnid inaad maaragtay data type u sheegtid laakiin haddii aad rabtid explicit inaad dhahdi aa u sheegtid typeka waxaa dhahaysaa string kana sidoo kale same weeye isku mid waa marka laakiin dot waa haddii aad ka reebtid kan maaragtay initialize ku dhahdi typeka isticmaalaysid kabacdi dart uu ogaanayaa wuxuu yahay horutina waa okay marka kan waxa waa list kabacdi haddii aad ku dhufano method badan ayuu leeyahay length reverse forest is empty isna hadduu eber yahay hadduu arrayga empty uu eber yahay uusan wax ku jirin empty waaye wuxuu soo saarayaa hadda right now is empty is false waayo wax ayaad maaragtay ku jira meesha marka also haddii aad rabtid inaad ogaatid maaragtay inta element oo ku dhex jira meesha waxaad isticmaali kartaa maaragtay length marka haddii aad dhahno array.length
wuxuu sheegayaa inta element ku dhex jira meesha. Marka wuxuu dhahayaa let's run this. What did I do? Oh, okay. Marka wuxuu sheegayaa 3. Marka waxa waa 10 2 2 3 element ayaa ku jira arrayga, right? Marka metero badan ayuu leeyahay sida maaragtay add waa ku dari kartaa element for example, right? Haddii aad rabtid more inaad ku darto waxaad dhahaysaa food dot add hodhowtii waxaan ku daraynaa hilib, right? Markaan ku darno haddii aad print dhahno wuu ku tarmanayaa kan wuxuu ku tarmanayaa meesha ugu dambeysa for example here. Marka hadda waxaan haysanaa 4 marka breeze pasta chicken hilib. Marka add ayaa isticmaali kartaa. Haddii aan hadda waxaan isticmaalinaa another array, waxaan dhahnaa shopping for example. Waxaad aaday suuqa ayaad aaday, marka waxaa haysataa inta aad rabtay adeeg inaad soo qaadatid. Marka waxaad dhihi kartaa for example tufaax, moose, maxaa kale let's say cambe. Marka kan waa shopping list waaye, aad rabtay adeegga inaad soo qaadatid. Marka intana rabta inaad soo gadatid. Marka sidoo kale kan waa dhihi karnaa print for example shopping. Kan waa shopping list weeye. Marka haddii aad comment ku dhufano sidoo kale isna wuu soo saaraya. Marka for example haddii aad dhahno 4 is went to shopping. Haddii aad variable haysano oo noo sheegaya haddii aad maaragtay shoppingka aaday iyo haddii kaleba. Marka for example haddii aad dhahno if ayaan isticmaalaynaa. Marka if is true. Marka haddii aad shopping aaday hadduu kan true yahay, kabacdi waxaan dhahaynaa food dot add all. Waa isku daraynaa shopping. Marka waxaan ku daraynaa foodkan elementigan ayaa waxaan ku daraynaa listigan ayaa waxaan ku daraynaa listigan. Marka waa isku wada daraynaa, kabacdi waxaan dhahaynaa print food, right? Marka kan delete ayaa dhahaynaa, tuwana uma baahnin. Marka hadda wax ma soo print garaynayo, right? Laakiin haddaan ka dhigno true, haddaan ka dhigno shopping waa aadnay, tuwan ayaan soo gadanay, hodhowtii waxaan ku daraynaa listigan. Run haddaan dhahno wuu noo sheegayaa, wuxuu dhahayaa okay breeze pasta chicken tufaax moose cambe. Isku wada daraya. Laakiin dot wuxuu haystaa saan waa samayn kartaa, waa okay way. Laakiin waxaan ku tusinayaa another way ama si kale aad u samayn kartid kan. Marka for example waxaad dhihi kartaa if listiga gudihiis ayaa waxaad dhahaysaa if when shopping. Haddii aad shopping aaday, kabacdi waxaad dhahaysaa shopping right? Of course we need to define this on here at the top, right? Kan waxaa dhahaynaa saas ayaa dhahaynaa, kabacdi run ayaa dhahaynaa. Waa inaad print dhahdaa kan. Marka haddii aad print dhahdid food haddii aad print dhahdid, marka aad run dhahdid wuxuu sheegayaa hadda waxaa haysanaa list of food, kabacdi waxaan haysanaa tufaax cambe, tuwana waa listi kale. Marka dib ayaa jira hadda. Marka waxaan haysanaa listigan, kabacdi waxaan ku darnay another list ayaan ku darnay oo maaragtay shopping ah. Laakiin ma rabna saan, waxaan rabnaa inaan kasoo saarno elementigan inaan kasoo saarno oo tuwan ku darno. Laakiin ma rabna another list inaan ku darno oo list labaad inaan ku darno ma rabno. Waxaan rabnaa hal list inaan lahaano
oo tuwanna kasoo saarno marka tufaax waa kasoo saarayna tuwana waxaan ku daraynaa this list kana index 1 kan waa kasoo saaraynaa waxaan ku daraynaa this list marka saan waa khalad weeye marka waxaan haysanaa list within a list anaka saas ma rabno waxaan rabnaa hal list in aan lahaano marka kan waxa weeye maaragtay collection if ayaa la dhahaa waa new features oo dart uu leeyahay marka waxaad dhihi kartaa if you want waxaad dhihi kartaa for I in shopping right kabacdi waxaad dhahaysaa I marka saan ayaan ku waxayn karnaa haddii aan run dhaahdid hodhoti waxaan haysanaa hal list ayaan haysanaa oo wax kasta ku jiraan sida maaragtay tufaax muus cambe oo listigan ka mid ah marka waxaad samayn kartaa marka waxaan sameynay kan waxaa la dhahaa collection for marka waxaan sameynaynaa elementi kasoo ku dhex jira meeshan for example tufaax waa kasoo qaadaynaa kuwan ayaan ku daraynaa sidoo kale index 1 markaan marayno muus waxaan ku daraynaa listigan ayaan ku daraynaa marka xabad ayaan uga soo saaraynaa saan kuwaan ugu sii darno saan ayuu saan sameynaya marka format haddaan dhahno programka saas ayuu noqonaya marka for loop ayaan qaadanaynaa marka collection for way marka for I in shopping list kabacdi for each shopping list aan inta ku haysano waxaan xabad ayaan uga soo qaadaynaa saan dhinacan ugu sii darno laakiin hadda saan waa okay way koodkan waa samayn kartaa laakiin waxaan ka fudud si kaloo raqiis ama easy ah ayaan ka fudud marka sidaasna waa ku tusinayaa marka haddii aad koodkan copy comment haddaad dhahno aan hodhowti run dhahno marka waxaan haysanaa listigii hore ayaan haysanaa breeze pasta chicken ayaan haysanaa marka hadda waxaan rabnaa haddii aad shopping aadid hadduu kan true yahay waxaan rabnaa inaan kan ku darno marka another syntax ayaa jira for example waxaad dhihi kartaa if went to shopping hadduu kan sax yahay haddii aad shopping aaday waxaa dhahaynaa bis shopping marka haddii aan run dhahno for example sidii aan sameynay ayuu sameynaya sidaan camal ayuu sameynaya marka kan waxaa la dhahaa let me format this kan waxaa la dhahaa spread operator ayaa la dhahaa marka wuxuu sameynaya spread operator wuxuu sameynayaa each element oo maaragtay elementi kastoo ku dhex jira maaragtay shoppingkan ayuu maaragtay xabad uga soo qaadayaa so maaragtay ugu sii daro shoppingkan marka sidaan camal ayuu sameynayaa laakiin sidaan ayaa ka fudud haddaa wax qoraysa maaragtay 3 dot ayaa sameynaysaa saas ugu dartid maaragtay listigan haddii aad shopping aadee aad soo gadatay saddexdan itemkan haddaad soo gadatay waxaad ku daraysaa your food item listiga foodka ah haysatay ayaad ku daraysaa marka easy ayay noqonaysaa marka waxaa spread operator weekan marka spread operator ayaa la dhahaa marka waa useful tool way haddii aad maaragtay listi waxaad ka shaqaynaysid marka hadda waxaan rabnaa inaad dul marno maaragtay loops inaad isticmaalno saad maaragtay iterate ama aan u dul marno item kastoo ku dhex jira meesha marka waxaa jira 3 different ways ama 3 waxyaabood aad samayn kartid oo saad maaragtay aad u dul mari lahayd list item kastoo ku dhex jira meesha oo element kastoo ku dhex jira meesha marka saddexdaba waan ku tusinayaa tii ku fudud ayaad isticmaalaysaa for example ka koowaad waa basics way marka waxaad isticmaalaysaa for int I equals 0 I slash 10 for example haddii aad dul marno food dot length ayaa isticmaalaysaa kabacdi I plus plus marka kan I wuxuu ka bilowdaa 0 I wuxuu as long as haddii I ka yar tahay itemka ku dhex jira meesha elementigan haddii aan dhahno for example haddii aan dhahno print food dot length run markaan dhahno wuu noo sheegayaa inta element ku jira 6 ayuu dhahayaa waayo waxa weeye 1 2 3 4
5 6 marka loopkan ayuu soconayaa ilaa intuu maaragtay ka yar yahay 6 marka I++ marka markasta waa ku daraynaa kabacdi waxaa dhahaynaa print kabacdi waxaa qaadanaynaa food kabacdi index hadda for example hadda programka haddii aan run dhahno wuxuu soo saarayaa breeze pasto chicken marka I markuu marayo I waa 0 kabacdi wuxuu print dhahayaa index 0 kabacdi I++ I ayaan ku daraynaa wuxuu imaanayaa 1 kabacdi waxaan soo print garaynaynaa 1 at index 1 so sidaas waa food 1 waxa weeye pasto right pasto weeye sidoo kale maaragtay haddii aan dhahno food 0 kan waxa weeye elementiga koowaad which is breeze marka kuwan ayaa tul maraynaa sidoo kale maaragtay food 2 wuxuu noqonayaa chicken right marka saas ayuu waxaan loopkan wuxuu sameynaya saas weeye marka anaka ma dhahayno 0 1 2 ma dhahayno laakiin programka ayaa maaragtay noo wada sameynaya waxaan dhan waayo loopkan ayaan isticmaalayna for I hadday tahay 0 as long as I ka yar tahay maaragtay inta element ku jira 6 weeye kabacdi I++ kabacdi print ayaa dhahaynaa kan waa basics waaye every language haddii aad luqado kala taqaani sida maaragtay Java ama maaragtay C++ kan waa luqad kasta ayaa iskale another way ku tusinayo waxa weeye kanna waa method 1 waa si kale aad u samayn kartid waxaa isticmaali kartaa collection for sida maaragtay saan camalan sameynay marka kan waxaa dhahaysaa for I marka I in food kabacdi waxaa dhahaysaa print food print I kana waa si kale aad u samayn kartid marka haddii aad print dhahno wuxuu noo soo print garaynayaa sidoo kale saa sameyna camal laakiin sidaan way ka khafiifsantaha waayo uma baahnid inaad maaragtay codekan fara badan inaad qortid waxaa qoraysaa for I waa I waxa weeye maaragtay element waxaa dhihi kartaa element kabacdi element ayaa soo qoraysaa marka waa daara kastoo ku dhex jira meesha ayaad print dhahaysaa foodkan marka kanna waa marka aniga I prefer waxaan jeclaa inaad syntax aan isticmaalo waayo waa si easy weeye oo aad u isticmaali kartid laakiin adig ku xirantahay saa rabta inaad u isticmaashid last one ama ka ugu dambeeyaa raba inaad ku tuso waxa weeye for each ayaad isticmaalaysaa marka for each haddaa rabta inaad isticmaasho waxaad dhahaysaa food dot wuxuu leeyahay for each method marka waatana for each wuxuu qaataa functionka wuxuu leeyahay string ayuu leeyahay kabacdi element marka element kasta maaragtay oo ku jira meesha ayuu print soo dhahayaa for example kabacdi haddii aan dhahno fat arrow print e right marka haddii aan print dhahno sidoo kale ayuu sameynayaa haddii aan comment dhahno kana waa same thing codekan wuxuu isku mid weeye kan iyo kan isku mid weeye waxay kala duwan yihiin bes waxa weeye saad maaragtay program ugu sameynaysid saas ayuu soo qorayaa fat arrowgan waxa weeye maaragtay wax ma return karaynayo waa shorthand weeye marka haddii aad saan aadan rabin waxaad isticmaali kartaa sidoo kale waxaad dhigi kartaa food dot for each kabacdi waxaad dhahaysaa curly bracket kabacdi print ayaa dhahaysaa so waxaad isticmaalaysaa haddii aad code badan leedahay for example haddaad codeyo badan aad qoraysid waxaa fiican inaad isticmaashid curly braces waayo kan waxaad isticmaali kartaa one line of code haddii aad rabtid inaad print wax dhahdi ama hal line hadduu yahay programka rabtid inaad qortid waxaa fudud inaad isticmaashid arrowgan
laakiin haddii aad more program qoraysid, right, more code haddaad qoraysid, waxaa fiican inaad isticmaashid maaragtay curly braces. For example, haddaad rabtid if, for example, if some condition, right, hodhowti haddaad rabtid inaad wax kusii qortid, waxaad isticmaalaysaa curly braces. haddaa one line of code isticmaalaysin, waxaa isticmaala far arrow. marka aday ku xiran tahay inta line of code aad qoraysid. marka labadooda waa isticmaali kartaa, laakiin waxaa raba inaad ku tusiyo bes maaragtay inay tala tahay si aad u tala samayn kartid. For example, waxaad isticmaali kartaa this for elements in I collection 4 way. waxaad isticmaali kartaa for each, waxaad isticmaali kartaa for loop. marka kii ku fudud ayaad isticmaali kartaa. marka waxaan rabay inaan tusiyo bes saad wax u tala isticmaali kartid. marka thank you for watching, and see you next video inshallah.